magacaygu waa Cabdirsaaq beeshka adiga daawanaysan ina dulqaad weyn ayaan ku sidaa maanta waa fanaanada caanka Rihanna waa gabadha 33 jirka dhalatayna 1988 bisha 2020 Rihanna waxay xiriir hore ugu soo samaysay Chris Brown kaasoo ah isagana fanaan kale oo caan ah waxay isku dhaleen hal gabadha waxayna kala tageen 2009 sababtan waxay ahayd Chris Brown markuu u gacan qaaday Rihanna xiriiradeeda ma aysan ahayn mid muuqda ilaa uu ka soo baxo ninka la yiraahdo Xasan Jamiil wuxuu ka dhashay cid taajiriina waxaana ay leeyihiin kambaniga ugu weyn ee Toyota ku dhex taala Sacuudiga kaas oo aasaasay Cabdullatiif Jamiil Xasan Jamiil wuxuu madax ka ahaa qaybta Jarmalka ku taala balse Rihanna way isguursadeen waxayna kala tageen 2017 bishii 9 oo maanta ay ku taagan tahay si toos ah waxa shaaca looga qaaday Rihanna in ay doonayso inay guursato A$AP Rocky kaas oo ah fanaan kale oo rapper A$AP Rocky wuxuu ahaa nin asaga sidiisa asalkiisa ka imaada dadka shaydaanka caabudo still inuu ku jiro in kale ma sheegi karno laakiin asalkiisa halkaas ayuu ka yimid laakiin dhanka kale waa nin degan fanaaninta kale marka loo qiimeeyo ciyaaladan gaangaang iska dhigan kuma dhex jiro uu ka duwan yahay dhaqan ahaan waxaana dareemaysaa inuu maskaxaan xooga ka miisaan weyn yahay sababtii ku dooratay Rihanna iyada ayaa naga taqaana sidaa darteed waxaa la qorsheynayaa sanadkan dabayaaqadiisa inay isguursadaan waa sida social media ku jirto halkaas ayaanu barnaamijkeena kusoo gabagabaynaynaa sidee kula tahay daawada adigii la daawanayo barnaamij midkan lamid intaynu ku kulmi doonno sidaa ay nabadgelyo